sababta keenaysa markaas ay soo laalaabtaan khilaafadan ka imaanaya wadamada dariska runtii wadamada dariska waa wadamo oo related la ah Soomaaliya Ethiopia oo kala ah 2006 iyadoo dawlad galbinaysay xamartay oo fila Soomaaliya saldhigtay dawladnimadaas hadda maanta lagu jooga Kenya iyadana sidoo kale qayb Jubaland ka tirsan dhul Soomaaliya ku taal ayay maamusha markasta يعني ودن كستبا وصف له ورقلا ودمada dariska ay waa farageliyaan oo wax iska caalami ah adduunka laga wada dhacdo marka waxa uu qabtaa 20 sano faragelintii shisheeye ay hadda rabtaa dawladdu inay la dagaalanto marka challenge oo booramaya dawladaha sidanaha ay Soomaaliya kala yihiin ay ah dana dhaqaale mararka qaar kood waxa ku xiran amniga qaranka dalkooda marka waa dano oo markaas ay rabaan inay ka dhex fushaan gudaha dalka Ethiopia maxay tahay marka damaceeda hadda ku aadan in ay Soomaaliya bad ka hesho runtii Ethiopia waa wadan landlocked ah wadan aan bad lahayn ka hor taariikhda marka loo fiiriyo badan la xajiri sagaashimeeyadii markuu dhacay dagaalkii Eritrea ay waayeen degad leeyahay Masawaa Eritrea ku taala oo dhinaca kale Eritrea ay bad noqotay taasina waxay sababtay in 100 milyan dad ku dhow ama ka sareeya inay noqdaan dad bad la'aan ah Ethiopia waxa la dhahaa wadanka weyn ee dunyada ee bad lahayn waaye taasina waxay sababtay baahi weyn oo horumarka Ethiopia gaari lahayd ayaa meesha ka baxay taasi waxay noqotay riyada boqorada Ethiopia boqolaalkii sano ugu dambeeyay waxay ahaayeen inay meel uun badda casiiradsiga iyo gacankaas cadmeed ay ka galaan waxa la sheegaa tusaale ahaan oo kala ah in damac Ethiopia soo bilaabmay 130 sano ka hor markii 1887 boqor Menelik labaad Ethiopia oo qabsaday magaalada Hirar isagoo taageero ka helaya Ingiriiska iyo Faransiiska kadibna isku dayay inuu Saylac qabsado laakiin laga hortagay halkaas ayaa taariikh bilowga taariikhda oo ah Soomaaliya Ethiopia Soomaaliya Ethiopia anaga markaa yarana waxaan ugu soo kaliyaa xabashida inay cadow ku wadiino oo waxyaabaha la isku caaya ama dadka lagu xifaalay waalidiinta ka sheekeynayeen dagaal waxa dhex maray 1964 Soomaaliya oo Urdan ah hatta burburkii ay Soomaaliya gashay Ethiopia sabab ku lahayd maxay tahay marka xiriirka soo jireenka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Ethiopia runtii Soomaaliya Ethiopia waa laba dal oo daris ah oo millions of years taariikhda marka dib loo laabto daris hadda ahaana doona waa laba dal oo marka u fiirisid cirqi ahaan iyo luqad ahaan xogaa u qabtid umad ku sheetika ah la dhahaa isku dhow dhaqan ahaan midab ahaan laakiin afkaar diini ah yani jirto Ethiopia Soomaaliya marka dib u fiirisid taariikhda Ethiopia waxay ahayd hooyga Kirishtaanka taariikhda islaamka markii dib loogu baray inkastoo mar taariikhda islaamka baal dahab ay ka galeen oo boqorka Ethiopia يعني ومجنجلية سي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوها هاجري dhulkii barakaysanaa ardul xabashi mid oo la sheego taariikhdii meeshii ugu horeysay ka soo degan in ay magaalada Saylac oo hadda Ethiopia-ku hamun u qabaan yaani taariikh hore marka islaamka laga soo taray laakiin haddana waxa dhacay dagaal u dhaxay muslimka iyo kristaanka waxaan aad u wada xasuusanaa buugaagtana lagu wada qoraa halgankii Imaam Ahmed Gurey oo ahaa halgamaa Soomaaliyeed oo qarnigii 16aad la diray Abyssinia ilaa uu gaarsiiyay dhulkan Eritrea oo Ethiopia-dan sare Ethiopia laba nooc waa Ethiopia sare oo buuraleyda oo gobolada Tigrayda iyo Ethiopia bariga ah waa ummadaha Oromada iyo Soomaalida iyo Canfarta waa ummad muslimiin ah oo inta badan Ethiopia u qabtay inay ka go'doonsan yihiin sidii markii la fiiriyo laakiin waagii dhexe qarniyada dhexe gumaysigu jiray ay dhulkaasi Ethiopia loo gacan galiyay Ethiopia-dii saxda ahay oo Abyssinia la oran jiray waxay ahayd gobolka Tigrayda iyo dhulka Eritrea marka waxa way taariikh waaweyn ka dhaxeeya oo dagaal ah oo muslimka iyo kristaanka buucaana jira oo leeyahay futuuxatul xabasha oo lagu soo aruuriyay dagaaladii kristaanka iyo muslimka ee ka dhacay Ethiopia waa gartay marka Ethiopia ma sidii badlaan ku noqotay runtii Ethiopia badlaan waxay noqotay Eritrea ay marka hore ka tirsaneed Eritrea dagaal ayaa dhacay dagaalkaas wuxuu sababay in jamhad Eritrean ah oo hadda madaxweynaha wadanka Eritrea Siyaas Afwerki inuu ka guuleystay Ethiopia dekadiina la tagay
marka degadaas kadib Ethiopia waxay ku soo dhacday jasiirad 120 milyan dad ay ku nool yihiin